sanadkii 1996 cabasho rasmi ah ayaa loo gudbiyay FBI-da laba gabdhood oo da'yar ayaa ku eedeeyay maalqabeen awood leh inuu kula kacay xadgudub galmo gabdhaha midood waxay ahayd 15 jir fursad marlihil ahayd ayaa la seegay nidaamkii difaaci lahaa ayaana ka aamusay sheekadani ma aha mid ku saabsan kaliya hal dambiile waxay bidhaaminaysaa awood la iibsaday cadaalad la hakiyay iyo sida hal fursad oo la beylhiyay ay saameyn taban ugu reebi karto nolosha boqolaal qof si aad u dhex istaagto dharaarihii dhagarta dhacdooyinkii xigay ilaa fadeexada maanta soo banbaxday waxaad u baahan tahay inaad dhammaysato tabinteennan Tifaftir Media oo ku siinaysa sawirka guud ee aad uga baahan tahay qisada Jeffrey Epstein soo dhawaada farshaxan-yahanada da'yar oo lagu magacaabo Maria Farmer iyo walaasheed ka yar ayaa sanadkii 1996 dacwad rasmi ah u gudbiyay xafiiska baarista federaalka Mareykanka ee FBI iyaga oo ku eedeeyay maalqabeenka Jeffrey Epstein xadgudub galmo waqtigaas waxa uu haystay fursad uu ku joojin karo ficiladiisa foosha xun isla markaana uu magdhow ku siin karay dhibanayaasha balse wuxuu doortay waddo kale mid u muuqata badbaado ku meel gaar ah laakiin marka dambe u horseeday burbur Epstein markii uu ka war helay cabashada halkii uu raaligelin ka bixin lahaa ama uu arrinta si sharci ah ku xallin lahaa waxa uu sii watay habdhaqankiisii isaga oo mararka qaar si dadban u cabsi gelinaya Maria Farmer tallaabada ay qaaday gabadhaas inkastoo la aamusiyay waxay noqotay mid saameyn yeelata ku dhawaad 10 sano kadib ka hor inta aanan gelin faahfaahinta faylkan aan marka hore milicsano shakhsiyadda Jeffrey Epstein wuxuu 20kii Janaayo 1953 ku dhashay New York isaga oo ka soo jeeda qoys dabaqada dhexe ah wuxuu ahaa curadka qoys laba ilmood leh caruurnimadiisa kama muuqan saasaan tuhun dhalin kartay wuxuu wax ku bartay dugsiyada dadweynaha kadibna jaamacad ayuu galay balse ma uusan dhamaysan inkasta uusan haysan shahaado jaamacadeed haddana sanadkii 1974 Epstein wuxuu macallin xisaabeed ka noqday dugsiga Dalton oo ka mid ahaa dugsiyada ugu qaalisan uguna caansan New York sida uu shaqadan ku helay ilaa iyo maanta lama oga 2 sano kadib Epstein waxa laga eriyay dugsiga sabab la xiriira xilgudashadiisa liidata isla markaana waxa uu si lama filaan ah ku helay shaqo cusub markanse waxa uu galay suuqa dunida maaliyadda kadib markii Alan Greenberg madaxa shirkadda Bear-Stearns uu shaqaaleysiiyay maadaama uu Epstein caruurtiisa macallin u soo ahaa intii uu ka shaqaynayay shirkadaas Epstein waxa uu muujiyay karti sare iyo awood uu ku kasbado kalsoonida macaamiil maalqabeen ah 4 sano kadib waxa uu ka mid noqday saamilayda balse siima wadanin maxaa yeelay markii uu sanad kala joogay waxa laga eriyay shaqada sabab la xiriira jabinta xeerarka gudaha sanadkii 1981 Epstein waxa uu aasaasay shirkad isaga uu gaar u leeyahay taas oo uu sheegay inay dib u soo celinayso lacagaha lagu qiyaameeyay maalqabeennada anshaxumadiisa ayaana sababtay inuu la shaqeeyo dadka la qiyaameeyay iyo kuwa wax qiyaameeyay labadaba sanadkii 1987 Epstein wuxuu xiriir la sameeyay ganacsade Stephen Hovenberg kaas oo waday qorshe khiyaano ah oo loo yaqaano Ponzi scheme kuna kacay ku dhawaad 460 milyan oo dollar Epstein wuxuu door muhiim ah ka qaatay been abuurka hantida maareynta sharci darrada ah ee saamiyada iyo qarinta dambiye maaliyadeed markii Hovenberg lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah ma uusan sheegin wax ku saabsan Epstein isaga oo ka baqay inuu ka badbaado eedeymihiisa sida uu horeba u sameeyay Epstein wuxuu ku qanciyay Hovenberg inuu yahay markhaati la shaqeeya wasaaradda cadaaladda sheegasho aan weligeed la xaqiijin intii lagu guda jiray 1990yadii Epstein wuxuu noqday magac si weyn looga yaqaano xayndaabka awoodda Mareykanka saaxiibadiisa waxa ka mid ahaa Bill Clinton Donald Trump Prince Andrew iyo xidiga Hollywood ah sida Kevin Spacey iyo Woody Allen inkastoo uusan caan ka ahayn warbaahinta guud wuxuu ahaa nin si qoto dheer ugu dhex jiray xarumaha awoodda xiriirkiisa ugu halista badnaa waxa uu la yeeshay Ghislaine Maxwell gabadha uu dhalay suxufigii iyo siyaasigii Britishka ahaa ee Ian Robert Maxwell saaxiibtinimadii Ghislaine iyo Jeffrey waxay isu bedeshay iskaashi buuxa oo ku lug leh ka ganacsiga gabdhaha aan qaangaarka ahayn sanadkii 1996 FBI-du waxay heshay dacwadda Maria Farmer iyo walaasheed oo markaas 15 jir ahayd inkasta oo dacwada si rasmi ah loo diiwaan galiyay wax baaritaan ah lama bilaabin halkii ay cadaalad heli lahaayeenna dhibanayaashii waxa lagu bilaabay cabsi gelin iyo cagajuglayn Epstein wuxuu adeegsaday xeelad isku dhaf ah lacag ballanqaadyo iyo hanjabaad gabdhaha qaar wuxuu ku qancin jiray hadiyado iyo riyooyin been abuur ah halka kuwa kalena uu u sheegayay in cid kasta oo ka hadasha waxa dhacay ay nafteeda ku wayn karto
Epstein wuxuu lahaa guryo waaweyn oo ku kala yaala New York, Florida, New Mexico iyo jasiiradda Little St. James oo uu iibsaday sanadkii 1998 isagoo u bedelay meel uu uga baxsado awoodda sharciga. sanadkii 2005 dacwad cusub oo ka timid Palm Beach, Florida ayaa bedeshay jihada sheekada. gabar yar ayaa sheegtay in Epstein uu ku xadgudbay kana bixiyay lacag dhan $300. baraha kiiska wuxuu ogaaday in tani aysan ahayn hal kiis balse ay jiraan shabakad gabdho da'yar ah oo la soo xulanayay. badankood waxay ka soo kala jeedeen qoysas sabool ah oo ku kala nool qaaradaha adduunka. inkasta oo cadeymo culus ay jireen, Epstein waxa lagu soo oogay hal dacwad oo kaliya. taasina waxay ahayd kicin ama dhiirigelin ka ganacsi jireed. sanadkii 2008 waxa lagu xukumay 18 bilood oo xabsi ah, balse wuxuu xabsiga ka bixi jiray 12 saacadood maalintii, 6 maalmood toddobaadkii. ugu dambeynna wuxuu dhameystay xukun aad u fudud. sanadkii 2019 maxkamad federaal ah ayaa burisay heshiiskii hore ee difaacayay Epstein, taas oo keentay in mar kale xabsiga loo taxaabo. tallaabadaas kadibna baaritaan lagu sameeyay gurigiisa magaalada New York ayaa FBI-du waxay ka heshay boqolaal sawir oo gabdho aan qaan gaarin ah iyo baasaboorro macmal ah ama la been abuuray. 10kii bishii Agoosto sanadkii 2019 Jeffrey Epstein waxa isagoo meeyda laga helay xabsi federaal ah. warbixinta rasmiga ah waxay sheegtay inuu isdilay balse dhaawacyo jirkiisa laga helay ayaa dhaliyay shaki ballaaran. Epstein waa dhintay balse su'aalihii uu ka tagay wali waa nool yihiin. qisadiisuna ma aha mid ku kooban hal nin ama hal dambiile oo geystay hal dhacdo. faylasha la helay oo ka kooban malaayiin email, dokumentiyo iyo diiwaano dahsoon waxay muujiyeen shabakad caalami ah oo leh xiriirro madaxweynayaal, boqorro, xidigo Hollywood, maalqabeenno iyo mutacallimiin. caruur laga soo xulay Amerika, Yurub, Carabta iyo Afrika ayaa si arxan darro ah loogu geystay tacaddi nooc walba ah iyo xadgudub kasta oo aadanuhu ka argagaxo. nidaamyo sharci iyo sirdoon ayaana si ula kac ah uga aamusay kiisaskaasi. hantida uu dhisay Jeffrey Epstein ayaa u saamaxday inuu sii wado falalkiisa intii u dhaxaysay 1996 ilaa 2019, xitaa markii boqolaal cadeymo ah la helay kadib. sheekadani ma aha mid dhamaatay, wali way socotaa. siraha iyo xaqiiqooyinkuna waa soo bambaxayaan. si aysan kuu sheegin macluumaadka qisada Jeffrey Epstein iyo gorfaynta dhacdooyinka caalamka ee kale, hamogaan inaad ka mid noqoto dadka ku xiran Tifaftir Media. inta aan dib ugu kulmayno tabinteena tan xigta, waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan.